kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantima meel kasta naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo toddobaadkiiba aad hal mar kala socotaan TV-ga Kalsan xaruntiisa magaalada Nairobi inta badan barnaamijka waxa idin la socodsiisa anigoo Igla Saalax daawadayaal sidaad horeba ula socoteen barnaamijka dhalinyarada toddobaad waliba waxaanu kaga hadalnaa mowduuc gaar ah toddobaadyadii hore saad hore ula socoteen waxaanu kaga hadalnay dooqa iyo dadka markaasi dhalinyarada sameysata six packs-ka toddobaadkan waa barnaamijkii oo laakiin ka duwan kii hore hadda waxa ay suurta gashay dhalinyaro aad u fara badan oo ku nool xaafadda Islii oo markaasi siyaabo kala duwan uga hadlay six packs-ka iyo dooqa ay hablahaas Soomaaliyeed dalbadeen aan ku horeeyo dhalinyaro aad u fara badan oo iyagoo cabasho ka muujiyay inay six packs sameystaan isla markaana ku tilmaamay xanuuno kala duwan in laga qaado dadka sameysta six packs-ka ama ciyaara jimka daawasho wanaagsan runtii waa la socday barnaamijkaas aad buna fani u ahaa barnaamijkan six bag iyo waxa horta six bag goor u imaaday iyo waxaas ma anigu lama haysto kuma mashquulo laakiin hadda magaalada ku jira oo isla ugu wareeriyo war six bag marka maaniga waana samaysan doon xataa midii ugu rabta six bag laantaas ayada u talaa laakiin six bag inaan hadhow faraha ka gargariiro saas oo dhibal iyo hadhow marka weynaato saas oo dhibal iyo kuma jira taas ragga dheer hadii ay ku haystaana Allah hayaay waanu dheer hada nimaasantiin marka barnaamijyada noocan ay sameeysan aad baan u xiisaynaa runtii TV-da kala waxaad kaga duwantiin barnaamijyada dhalinyarada ay sameeysan sababtoo ah bulshada waa dhalinyarada marka inaad sii wadaan oo barnaamijyada wajiye far badan u yeeshaan aad baan idinku tala bixin lahayn waad mahadsantiin Kalsan TV aad baan idin jecel lahaa in aad sameeyso waxa ka horeeya horta naaska inuu intaan ku leekaado oo markaas saxanayso saas tiraado wajiga ka saar manaasta waa dadka qaar muruqa ka wada qofka inuu aalamiiteeyo oo aalamiit caadi u galo oo access gareeyo oo wax la garan karo way laakiin six packs aniga bataata ma ka soo horjeeda ragii waxa la yiri ragii caloosha laha qiilo ma hayo bal arintaas maxaad oran dadka caloosha la boqolkiiba 90 dad xigmad la weey la waxad waa la soo ogaado dadka jimka qaado feeraha inta soo leeyahay xigmada ka guurtay xigmad ma leh boodar bay cabaan wax bay cabaan qofka waxa aqli la weydiinaya ma jiraan eber bi qof naasiba halkaas leeg funaan yar buu qabaa wuxuu la joogo ma leh marka aan waxaan qabaa dadka six bag waa dad la qaldayba oo la lumiyo lunsan dadka dad lunsan weey qofka inuu barooni dheelo oo siisa caloosh u jaro wax la gartay caloosheeda horta wax fiican ma laakiin bataata maxaan ka soo horjeedaa biraha inta la qaado qofkii dhan uu soo soconayo oo qofkiiba qaldan yahayba bataata waxaas wax qaldan weeye dhalinyarada waa lagu xigmad ma leeber weey dadkaas total marka maxaad dadka six packs ka sameysanaya hablaha weydiinay ragga maxaa taraa ma hablaha mid oo ku raacsanahay qofka inuu aalamiitay ama barooni dheelo oo siisa caloosh u jaro wax la gartay weey laakiin jimka la qaadayo murqaha saas la leeyahay kuwa noo jooga hadda guryaha wax loo dirsado ma leh marka dadkaas waxaan leeyahay six bag ka sameeyay waxa la joogan ma leh bataata waxa loo dirsanay ma aqli ma eber weey dadkaas qaasatan waxa la sheegayaa six bag gabdhaha waxay jecel in six bag la sheegayaa laakiin waxa wada six bag gabdhaha wajib ma fiirnayaan marka qaasatan anagana waxa sameeynaa fanaanda iska siibeena soo magaalada waxa marayna anagoo feer qaaban sida loo arko six bag marka adiga ma tacabaad ku bixisay inaad six bag sameysatay ma aysan tacab ugu bixinaa waayo habeen walba 47 xabo Brookside la cawaa goorma six bag ii soo raacurta marka ujeedadaada ma fahmin adigu ma six packs baad leedahay ma soo xad rabtaa ka soo horjeedaa six pack way waan ka soo horjeedaa soo qofka waxa laga helaa wajigiisa laga helaa laakiin calooshiisa laga ma helo soo qaasatan gabdhaha waxay taagan six bag rabnaa six bag markii qolka la soo maal fiirna mise wadada lagu fiirna mise wajiga qofkiisa la fiiriyaa horta six bag aan waliga ma sameysanin haddana program ugu jirna sameysto dumarka dhaayaan six bag rabnaa ayaga mid Allah ku taalo markii hal sano ay joogo dhalaan qasab Allah soo dhac soo laaban xir marka qasam ahan qof ku dhashay six bag ma lahan hadii la ilayeen waxa rabnaa six bagna hadii waxa dadka ajaanibta raasanaga ma ahan horta aad baan islaamayaa barnaamijkan TV Kalsan oo adigoo ah Eglan saaxiibkayga Moolid warsamo kulane kaameramankan oo sida quruxda badan oo duubo barnaamijka dhamaan asxaabta Kalsan TV aad baan islaamayaa magacayga waa laacibka Afrika Ajos Cade Eglan barnaamijkan oo dhalinyarada ku saabsan six pack aqabat horta aad ugu faraxsana waayo wax laga hadlo loo baahnaayay horta nibadoo leeyahay laakiin aniga fikrad ahaanteeda
haddaa barnaamijka aan ka dhiibto six pack horta aad uga soo horjeedaa waayo naag culeyskeed ma la qaadi karo xaqiiqa walaasha ku sheeg dookhi guur haddii laga hadlaayo kayga Soomaaliga oo isku diinta hanaan guursanayaa dookhayga haddaa ka hadlo waxaan guursanayaa walaalkayga oo Soomaaliga oo la garanayo walahi taas dhib waaye just beentana ma ahan taas hore uga dhawaajiyeen oo waxay dhaheen naagaha cadaan just iyo naagaha Soomaalida difference justina ayaga dulqaad badan dhaheen qaylana ma lahan laakiin aan waxa jeclaan lahaa in aan walaalkay guursado oo aan ahaano dadkii maxay aheetooyay de ubadkooda meel ka soo wada jeesan lahaayeen laakiin cadaanka waxay ku dooteen kulli de something wax un baa ku jiro waa naxariis badan yihiin baa u maleynaya naagta cadaan tahay dad jeclaataan diinta ma fiirinayso guursanaysaa tan Soomaaliyeedna dad jeclaataan waa sidoo kale ani ahaantii laakiin waxa weeye jacaylku undhamale tii ilaahay ku soo laakiin gabdhaha Soomaaliyeed dhahay six packska waxbayna isku daalna ragga Soomaaliyeed calolooyin ba ku taala waxa meel leeyna aadin ninka jeceshay Soomaaliyeed isku guurso six packsna lahayn bad raadinaysa cadaan gabdhaha cadaan ka waraysan karna mugtay marka ani ahaan ra'yiga waxa weeye ninka jeclaatid naagta haday tahay ninka jeclaato ha guursato ninka adiga dooqa ahaan baan ku adiga shakhsi ahaanta ani dooqa ahaanta dad guuri ma gabar Soomaaliyeed laakiin dad jecel naag jecel waan jeclaanahay naaga doon baxtaan hatab laakiin dad guuri ma naag Soomaaliyeed marna guursato horta haddaan ka hadlo dhanka six pack kulli xisaaba meel xun iga taala islaantii yaa raba inay guurso lacagtan ku guursan laaba shaqeynay six pack gormay waqti u haya marka kulli fikradeeda anigu waa sidaas fikradaas aan qaba ahantii in gabdhaha waxay u bateen xaaladaha waxay u bateen am six pack niman leh anigu kulli inta ma raacsan nimanka six pack nimanka cala sharan ka helaa may aniga single maxaa sameeyay xilliga single xaalado badan baa iska jirta marka aan jeclayn faafaan ka sii bixin kulli waxyaabo badan baa jira marka waa iska taqaanaa qurban ninkii jooga xaalado badan iska jira ma garatay waa tahay waan filayaa daawadayaal muuqaalkaasi in dad aad u fara badan daawadeena markaasna ku haminayay inay sameeyaan six packs ama gym ciyaaraan iyo dhalinyaradu sida ay fikirkooda markaasi ku cabireen ay uga hadleen aanu gudbo muuqaalka xiga waxa jira iyaguna dhalinyaro Soomaaliyeed oo taageersan markaasi six packs kuna hawlan sidii ay markaas six packs u sameyn lahaayeen iyo waliba dhalinyaro kale oo iyaguna sheegay hadii six packs la waayo bedelkooda ayaan raadin doonaa markaas oo wixii aanu kaga gudbino arintaas ayaanu sameyn doonaa daawasho wanaagsan runtii England aad baan ku salaamayaa adii warbaahinta Kalsan TV dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ku sugan tahay runtii kulli barnaamijka waxaan dhigi karaa barnaamij aad u xiiso badan oo barnaamij ka hadlaya yani dhalinyarta gaar ahaan six pack runtii six pack aad baan u xiiseynaa inkastoo gabdhihii yani hadda bariyahan ugu dhacsan yihiin marka waa inaan six pack aan sameeyno so that soo jiidashada marka yani gabdhaha hadda waa la isku caayaa six pack ma tiidi waxaas isku mid baan nahay dhahayaan mugtaa adba calal baleedahay marka yani six pack qorshahaas waa qorshe hadda yani meel walba yani laga xiiseynayo runtii waxaan dhihi lahaa waa di six pack diyaar baan nahay hadda gym baan galnaa already kulli six pack waa ma sameeyay six pack ha yes of course okay six packs say adigu forms may weli six ma maray hadda three pack ma maraya والله دي كلبا يعني واحد كو قانيس وقت ويان دو إن وقت سيستو سماه وقت دربا كو قادنا يصود داد لكن مركا عادي سيكس باك مركا نقطة already قبل واحد مركا صود براعي لكن تا سيكس باك هاي عندنا حكومة فليسو حتى ما دام مركا هراء من حيث أريد أسمي حتى هذا صدح مريس محل فرنتو والله وحياة بدن بعود حيو because أول وحدي كرت دي روح أو مركا سيكس باك ما هي سماه لكن ردنا سيكس باك بنا يعني مركز يعني شركة وديسنيها يجيب بعد جلسة صودات وحندي كرا واحد لو فرح مركز. دلب تلك سوق على مركز. دلب بدن والله بالله مركز وحنو مالنا يادي أول يعني أول دي يعني وطلية بيا. هطلية بيا روح بمركز وكوين ما عليه هاي ويل كيرك أو شيء عمل مركز like that لكن أول قبل حاليا نك سيكس باك معها مركز وحنو كلفة قبل حاليا سيكس باك سميسنا. أول وابلو العقب هذين ما ترى سيكس باك مرة سحالة. marka de waa nin dookhi naagta six pack oo helaysa tii kalena dadkeeda kale helaysa dadka jimka isticmaalaa ani ma dadka jimka isticmaala laakiin waa dadkaas go'an arka dhalinyarada saaxiibo wala rag isticmaala laakiin six packs may ani bali ani waxaan ku dubaraya
may dee ra'yiga dadku way kala duwan yihiin dee wax badan aa la soo jiitaa six pack may aniga kuwa ilaahna waxaa leeyahay waa mahadsan yihiin say u leeyihiin dadkaas iyaaba dooqooda la helaya ragga kalena waxaa leeyahay waxay isku dubaraya ama lacag haato ama ha haato aqli kale iyo maskaxdooda kale ayadana waa six pack ilaada mujada ninkana six pack u leeyahay marka ala kuna calo lacagtaada ayaa markaasi ha lacagteeda socodsiinayda mujada maga six pack ma bidi kartaa aniga waa alabtan maxaa alabta adaab si caana bisi da mujada hada caana si sayela ha gracias waa masada weli daawadayaal waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka aynu kaga hadlaynay six packska waxa laga yaabaa dad badan inaanay macnihiisa garanayn ama wuxuu yahay garanayn six packs markaan micnayno wuxuu yahay dadka gymka ciyaara ama jirka dhisa sida ciyaartooyada oo kale iyo waxyaabo la mid ah marka waxaan rabaa ugu dambeyntii wax badan baad daawateen muuqaalada aan ka soo diyaarnay dhalinyarada markaasi ka horeeyay inay sameystaan six packska iyo dhalinyarada markaasi iyagu taageersan inay waxa aan markaasi ugu dambeyntii barnaamijka ku soo casumay maxamed cilmi dhicis oo ah abwaan Soomaaliyeed oo markaa isagu martinoog ah abwaan ku soo dhaw barnaamijka Kalsan TV waa mahadsantahay Eglan barnaamij xiiso badan mujtamaca maanta ay wada fahmi karayaan intooda badan ama dhalinyarta ama da'yarta ay fahmi karayso laakiin dadka odayaasha ah ama da'doodu sareyso haddii loo sharaxo mooyaane inay fahantahay iyo aad ugu yarta horta ma doorashada labada qof markay isdooranayaan qaabka loo dooran lahaa waayadii horeeto gabadhana habbaa lagu dooran jiro qaabbaa loo dooran jiray quruxdeeda aadaabteeda akhlaaqdeeda dabcigeeda nasabkeeda diinteeda iyo hantideeda waxyaabahaasa gabadha lagu dooran jiray sidaas si lamid ah ninka ragga ah waxaa lagu dooran jiray waxyaabo badan baa lagu dooran jiray oo dhaqankii iyo diintiiba ku wanaagsan hadday tahay xagga geesinimada hadday tahay xagga codkarnimada hadday tahay xagga dhaqan aqooneedka hadday tahay xagga hantida maalka geel lahaanshaha nasabka ayaduna sidaas oo kaleeto ragga ninka raggaa lagu dooran jiray saas lagu dooran jiray aad baad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal wax badan baynu sharaxnay six packs dad badanna way ka hadleen bal inaan ku weydiiyo horta six packs muxuu yahay six packani wuxuu soo kordhay waqti dhow buu soo kordhay qaabkii jirka loo hagaajin lahaa gym baa la gelayaa marka jirka waa la dhisayaa qofka jirkiisa inuu dhismo uu kala gogo uu kala xirxirnaado uu jir buuran yeesho war nin qamarjiyo wax soo baxayo balaayaha baa soo baxay marka gabadheena noocaas bay ku dooranaysaa ninkii bay ku dooranaysaa sababa aad garab waa qaab yar xiiso badan oo gymka iyo casrigan uu soo kordhiyay weeyaan gymka la galay uu soo kordhiyay way qurux badan tahay caafimaadku waa qayb kamid ah qofka bini'aadamka qayb kamid ah weeyaan waana la isku dooran karayaa dabcan waa macquul balsana qof aad la noolaanaysid 25 sano ama sana 40 sano ama 50 sano ama noloshaada inta ka hartay ma ahan inaad ku dooratid dabcan kaliya jirkiisa kaliya inaad ku dooratid ma nuuci kale to dhaqanka iyo waxyaabay soo jireenka ahay in la eegaahina waa ayaduna arrin muhiim ah weeyaan dadka fahmi karina inay fahmaan ayaduna waa arrin muhiim ah weeyaan meesha ku jirto marka maasayir baan ugu aan ka sameeyay okay aan u soo noqono maasada waxaan rabaa inaan ku weydiiyo berigii hore sida aad sheegtayba adigu nasab baa la isku dooran jiray dhaqan baa la isku dooran jiray akhlaaq baa la isku dooran jiray sidoo kalena waxaa ragga marka laga hadlay waxaa la oran jiray nin lacagta la isku dooran jiray oo markuu ama geesinimada ama nin lacag leeyahay ama yaxba noocaas ah hadda laakiin waxaan sidaynu aragno wixii oo dhan waa laga tagayba waa laga tagay haddii aad lacag leedahay aad lacagtaada isu leh haddii aad nasab wanaagsan tahay inkastaan hadda cidiba ku mashquulin in qofku nasab yahay iyo qofku kolley ay ka wanaagsan tahay in dadkii ay isbartaan oo kaliya raggii lacagta lahaa waad arkaysay inuu ay ragga qaar yidhahdeen anagu nin lacag leh lacag baan leenahay waxaan isku markaa isku dhaafinaynaa buntada aan laga gudbi kari waayay hablihii de xidheen lacag baan isku arrintaas ay wartay horta qofka asiga oo six pack leh ayuu lacagna lahaan karayaa marka waa laga dheeraynaya faraski waa laga dheeraynaya dhankaas soo ma adag hadduu ninkii haddii lagu dooranayo six pack haddii la isku dooranayay six pack iyo lacagtii baa la isku heli karaya ما يد هذا وح العجب ولا جماعة هدلينه توتالي وح العجب توتالي يوح الناس سبطون ولا جماعة هدلينه وح العجب هدلينه 6 باكس لي أما رجع تيم كعيارة تاسي هرت وحويا وفكرة إن لقى ضوء بعه قف عدوان صار شيء وقف أنت صار سنة عدو بدل نوران إنسان إن 6 باك كريات كدور تاعي وأهل لقى وناكسين
waa inaad akhlaaqdiisa eegtaa waa inaad qofka dabcigiisa aad eegtaa waa inaad wax badan anshixiisa qofkaan aad eegtaa soo ma aada garan waa inaad wax badan aad qofkaan ka barataa haddaa aanad intaa aanad ka baran waxa hadhow aday saameyn kuga samaynaysaa intaasu sanabaad la noolaanaysaa soo kula dhaqmi doonaa haddii waxaa laga yaabaa inuu ku taraara ama ku dilaba laga yaabaa ninkan six pack uu soo samaysanayay hadhow aday soo aada garan hadhow waxa noloshiiba riski ka shaa noloshiiba halis galaysabe in yar hadduu xanaaqo cidi kaama qabanayso soo aada garan meel halis baad ku jirtaa marka waa arrin ayaduna u baahan in laga maaragtay la fiiriyo laga fiirsado waxyaabahan adigu marna ma isku daday abwaan inaad samaysatid inaad gym gashido markaas bal sanadahan dambe six packs inagu soo kordhay inaad laftarkaaga bal dhinaca dhalinyarada ka maya anigu weli ma aan isku dayin dadka ka soo horjeedo ayaan weli ku jiraa ilaa aan ka ogaanayo waxaan wixii yihiin aan ka ogaanayo wax faa'iido iyo khasaare waxaad dareemi karaysaa qofku markuu waxa ugu maqaalo qofku markuu murqa waaweyn uu samaysto gym uu galo in badan uu jirkiisa ka shaqeeyo in badan uu dhiso hadduu moogaado muddo uu moogaado waxa laga yaabaa jirkiisa haddii inuu degdeg ku dabco dabo maaragtay daboolkii ka dhaco uu jirkiisa uu dabcay biyihii ka baxaan oo marka dambeeto balaq qofkii uu noqdo hadhow waxay kugu qaadanaysaa marka saameyn jireed bay kugu qaadanaysaa laakiin jirkaagu hadduu caadi uu iska yaho sida caadigaa u dhisan yahay cuntada caadiga aad cuntid ama sana exercise aad samaysid aad orodid waxaad noqonaysaa qof leelisan aad noqonaysaa oo markaas aan wax badan dhibaato soo gaarin inta badan markaad u fiirsatid reer miyiga iyo reer magaalka waxaa caafimaad badan reer miyiga baa caafimaad badan sababtuna waxa weeyaan bira ay uma qaadaan way socdaan caana bay cabaan hilibka cuntada bay ay cabaan oo xeydhu ayna ku badnaan marka qofkaas caafimaadka waxa u sababayo qorraxdaasuu ku socdo dhidid badan oo ka baxayo xoolahaasuu ilaalinayo cuntadaa yaroo dabacsan oo cunayo oo u badan caanahaas iyo biyahaas iyo hilibkaa u badan waxay u samaynaysaa qofkaas inuu caafimaad jirkiisu marka aanu bira qaadin laakiin bira qaadin qofka qaadana uu kaga caafimaad badanayo sidii aynu daawanaynaba dhalinyaro iyo dad baa waxay ku tilmaameen six packs kan la samaynayo in xataa uu dadka marka xanuunkaba laga tago in xanuun laga qaadayo in haddana xigmada ka guurto marka warna intaas horta midda xigmada ilaahay subxaanahu wa tacaala horta xigmada hayo qofku doonaba xigmada siiya caafimaadkana sidoo kaleeto asigu un baahayo qofku doonaba uu caafimaadka siiya laakiin waxaa la yidhi markaad wax samaysanayso waa inaad noqotaa dhexdhexaadka waa inaad samaysataa waa inaad saa'id aanad ka dhigin tusaalehaan haddii aad gym aad gasho oo aad jirkaadii aad u dhisto aad u kobciso oo barbararo awoodo badan uu yeesho hadhow waxaa laga yaabaa inay saameyn kugu noqoto jirkii uu dabco xaggii jirka baa markaas aan ka hadli karaynaa ama aan eegi karaynaa laakiin qofka inta badan ilaahi subxaana watacaala taas inta badan culamaduna way ka hadlaan oo way noo aqoon badan yihiin waxa waa qofka bini'aadamka waxaa laga abuuray jirkiisa ciidda ayaa laga abuuray waxaa lagu leeliyaa inta badan oo jirku quutaa waxyaabaha dalagga ah oo ciidda ka soo go'o marka waxaad leedahay dadkaasi ku tilmaamay ama in xigmadu qofka ka guurto ama sidoo kalena sanaba laga keenaa dhanka sanaba ma waxaad leedahay markii ay samayn kari waayeen arrintaas ayay iskaga dabireen in laga yaabay macquul sababta garan marka anigu waxaan u arkaa xigmada dhanka sare bay ka imaataa ilaahi subxaana watacaala marka waxaad leedahay wax xigmada shaqo kuma laha marka waxaad leedahay qof waxaa samayn kari waayey oo samayn kari waayey ayaa markaa iskaga difaacay waa u raadsanaya sabab baa loo raadinayaa marka sababahaasina qayb ka tahay marka adigu caadi ahaantaada ma qof waxa tahay taageersan oo dhalinyarada markaas ku dhiirigelinay inuu sameeyo arrintaas mise waxa tahay qof le sidii hore in ku joogno anigu kuma dhiirigelinayo umana diidayo qofkii doonana ha samaysto qofkii laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa inaan lagu talax tegin si hadhow wixii ina dhibaato ina kugu sameyn qofka Soomaaliga waxa wanaagsan inaad kula talisid hadda tusaale ahaan haddii aad cayishid dhakhtarku inaad kala tashataa qaabkaad cayilka u baabi'i lahayd exercise qaabkaad u sameyn lahayd ama layl qaabkaad u sameyn lahayd ama orodka qaabkaad u sameyn lahayd inaad bere waaweyn aad qaadahay iyo hadhow kugu soo dhacaan ama ay dhibaato ku yeelaan laakiin hadda waxayba noqotay wax daruuriya markii la yiri raggii burburay raggii caloosha lahaa waxa wada looma hayo miyana iyaga laftirkooda ku khasbaneen waxaan leeyahay inaysan maaragtay aynu u eegin xagga six pack oo kaliya u eegin ay u eegaan xagga qofnimadiisa shakhsiyadiisa garaadkiisa aqoontiisa tacliintiisa wax soo kordhintiisa wuxuu hadda uu biri ka maalin oo qofkan uu kugu soo kordhinayo inaad u eegto ayaa wanaagsan marka waxa la dhalinyarada cuslaatay ha laga daayo in lagu khasbo inay jirka lagu khasbo baa leeyahay in six pack ay sameystaan qofka jirkiisa inaad dhistaa oo qurxisaa ama aad u subagtahay
way wax wanaagsan weeyaan laakiin ma ahan inay awoowayaashiina dhaqankiina mayna ka soo gaarin inuu qofkan uu garbo waaweyn uu yeesho haye marka waxaan leeyahay taasi waxay u baahan tahay inuu qofku dadnimadiisa kaleeto iyo shakhsiyadiisa kaleeto inuu ku ekaatay u baahan tahay wax badan baan markaan arrintaas six packs ka soo baxday ama gymka la sameeyo ay soo baxeen wax badan baan isku dayay inaan wax badan ka ogaado marka dhalinyaro badan baan wareystay oo hablo u badan kolley ma aan arkin markii aan raadiyay qiil u raadiyay raggii caloosha lahaa ama raggii aan six packs ka sameyn in wada loo horta taa wada waa u soo waayay laakiin waxa la yidhi ragga aan six packs ka lahayn laakiin dhaadheer iyaga wada loo hayaa marka waxaan filayaa inaad adigoo qolada dhaadheer un gelaysid aad gelin qolada six packs horta anigu horta six packs ma aan isku dayin weli haddana kuma tarajo laakiin adiga dee qiil baa weli lagu hayayo haddii baa raggii dhaadheeraa wada loo hayo weli rajaad leedahay laakiin waxaan leeyahay ragga gaagaabanaya laga tegin baan leeyahay يعني لك رسوعين بالله سيكس باقي إنه لك رسوعين. يا واحد لا هوش سيدي هريتا. هوش سيدي هريتا. هلو قد دايو. شعالك هذا شعالك لسلسو لسه لستونني. سيدي ما ركتي خوفك شخصية دي سيدي بعدي سلوك راديني هالنقطة. أما الناس كي سلوك راديني هالنقطة. هلا غير جوجيو. أديك أقول كذا سمايسن كريم. هذا قرحين كريم. سو ما ذكر أديك حاجات. مركب إحنا يجي بابا لا يجي وحين القرح تتوي. ها قف كان وحلا غير بقى هدي أدو در قرح بدنا أدو جلسيت. إنه كصبحه وكذا قرح بدنا سيكس باقي أو ده بدنا ما والله. مركب واحد لا أديك كحرم تاسع. أديك حتى أنا أقول كذا. مركب لا واحد لا هي أدي إنك يدك كحرم تاسع. مد داري مد قاعدين بقى. هذا ما. أرنتي لياب كبده واحد اللي يربط المكان ورايستي. أنا والله أنو سيكس باكس ما سمين كارنو. يعني أرنتان فرصة بوما هينو. لكن أنا جوحوي واشق السنة والرجل عقل بالنا مركب العقتي مركب إحنا مقري تري مخلص كيا محيتي العقدة كحقود عافية وحياة بكرة تي والله حبله تعبي وتعبيدين كليه هذه مخلص كي أما العقل يسكون عافية يا باشا لا هرتا بس نقول تعبالين كليه ويجرتا هرتا جبده مارك توايد عند بيت أنا قلنا وأنا عملنا أيوة من إنه إنكسر من وسيعة كيا سما أذكر واحد مغليس هستي هبلاي هستي هبلاي هستي هبلاي هستي هب لكن هستي هبل ما مغليس سما أذكر أيوة هسنا مهجاجيان أما الجماعة حتى ما عرفت ريدا أيوة نوم مهجاجيان هستي عاشر هستي سهري هستي لولي هستي إغلان هستي صلاقي هستي سمسم هستي وحسب مغليسة لكن هستي محمدي هستي علي هستي عبدي هستي ما مغليس سما أذكر وقت بدن بنجلناهم مسكحدينا كاميرا سان أيجان أنو أمال لهن. ده أبو محد كرتا إني إن بدن حبلو مركا إدين ساعات بتوميين وسولو مركا إن أركينا وحب إدين كسر شيء مركا إن وش الله سقاطه. ما وين نقصو جيدانو. واحد بدن وين نقصو جيدانو. وحويان قفك إن هرتا أنا وحنونا إسكو دول بيننا إسكو ضد بيننا إسكو ساماري بيننا إسكو رقم بيننا. وحلاقيها وعرفنا سيكس باك تدرتي وصل. لكن مركب واحد بدن ساعات بتنتي مركب دم بيوادر كيسا مركب هذا أمانتي إيو مقرنا سا إذن كيدو كحداي. مساس بالله. هيوا يا نو أنا ماني نعملين. إن أديكو مركب حبلها هي سمر موترسي. إن حبلها هي سبب بقى وإن جعلكو. إن وأمان حبلها. أنت بدم حبلان أمانة. مركب واحد فيلي أنا خطرة يسهر يفاضمو يو خديتشو يده هسه بدل مركز. مدي الله ما. إن حدي أنا حوين كلا أمانين. سوقانت النح ما يرانيس قيمة غير ما يرانيس أما قايمة ما يرانيس. سوقانت وحي قيمة كلها ده ولو مدة الصومالي ده إن كبده لو سفايو. إن وحنا قيمة كلها هجرت السيدو كلاته. إن نبض لو سفايو. إن جوابه وحيابها سوكرات لو كذي. مركب جبد وحي كمل هذا قيبت سوقانت قيب وين بيجبدون كلها. مركب ده مركب وحلقت الماما إني بدي هنا قروح ده الدنيا ده. قروح ده الدنيا ده. هرت واتري جبل عقل جيد واتان مسكح جيد واتلو عدود جيد واتعب نبر جيد واترن تجوجها سرّي لحدو تاك إيه ماذا وحاول ما يسقط لحدو تاك إيه ماذا تمهيد وعلي حديد واتيه إندهيد واتذا أفكو وحشوتيغا تعلينيكو أوبتو هذا التلمام تغان حناقي التكابرنا حابت كذا لقيته هذا قبلها سومالد ما حناق بدنا أنت بدنا قلت شو يراهي أنا مرتي جيلي إيه لمن سومالد ما حناق بدنا أنت بدنا قبل يردقن الدون كلام مرة الله فيري أوكي حابت كذا لقيته صعد كانت اللعبة ما تنعرف حيسو
ma taraaruxay socodkana tallaabada ma taraaruxayse way u taawulaysaa tafantoofna may baran qur-aanka tugteeda iyo taqwadeeda laga dhigay mata korna qoladana nasabteeda weeyaan soomaali toosana daimayna taakeen talaf maaha laga tagay 70 may gelin 10 wiil ma soo furin 15 jir weeyaan tamar bayna leedahay iyo hadafta loo amar wax bayaan tareen hortane turxaan bixinta gabaygana kuma tabinka turxaan bixinta gabaygana tacliiq erigana tacliiq gabay maansaba kuma tabin kara tan ka weey bas waxa tagaalay sharaf loo tababar rag kitaab cilmi boodhari wuxuu u dhimanayay waxa shaqaas laakiin abwandeen amana waa tirisay hablaha qaarna waad weerarto waxa tiri 10 nin ma soo furin 10 waxa weeyaan hablaha la soo furay kabar meel hadii ka maxaa inta badan dhaqankeena uma badno isfuritaanka badan uma badno hadii xataa la isfurayo may burburkii hal ya labo sababta gara laakiin furitaanka badani uma badna hablaheenu waxa weeyaan waa hawla ma inta yar la soo furay intii burburkii iyo dadweynaha burburtay marka hadii la soo furay hadii la soo furay Soomaaliya waa burburtayo marka waxa weey burburkaas Afrika badan ayaa keenay ayagana lama caayo oo xaqiiqatan waxa weeyaan habluhu waxa weeyaan single motherka ama sana kelinoolayaasho inta badan ayaga caruurta koriyo ayaga reerka taageero ayaga qoyskooda ku filan naftooda ayaga ka adag waa dad karti leh weeyaan kartida bay qayb ka yihiin ayaga lama weerarayo marka waxa leedahay ma weerarina waqtiga sidaa abwa six packs-ka markaad aragtay barnaamijyo badan oo laga sameeyay aadna waxaad ugu xidhan tahay Kalsan TV inta badan anagu waxaan sameynaa barnaamijyada dhalinyarada iyo arrimaha bulshada waxaad ii sheegtay inaad markaad aragtay six packs-ka inaad maasooyin ka tirisay bal maasadaas horta kidisna way ugu aheeday maasada aan sameeyay six pack ku saabsaneen waa maasa yaroo qosol ah su'aalina dadka ka weydiinaysa waxaan waxay yihiin si uga soo aqli geliyaan marka dabaatay uga soo jawaab celiyaan ama uga soo war celiyaan ayay waxay leedahay horta waa su'aale six pack waa maxay horta waa su'aale six pack waa maxay masarbeeb qarsoon iyo wax la suuradeeya horta waxaan waa maxay masarbeeb qarsoon iyo wax la suuradeeya waynu garanay ma afgarad sirgaxano suuqa aayar galayo laysu wada salaamiyo suul dhabaalo gaariyo erey soo koraya ma jecel siloono rag iyo dumar basirayo 7kan ka darayo aad ugu siyaada six pack waa maxay manin sarara weyno jim saa'id qaado murqa sara samee seeduhu go-eeno dhibi seerina ratir soo lamooda manin sarara weyno jim saa'id qaado seeduhu go-eeno rati soo lamooda saaxiibada rumaade Soomaalida ahaayo bal sifeeya sheekada bal sifeeya xaajada kala sooca sheekada jawaabtana inoo sax masala yaro gaar marka dadkii markaad aad wixii eegtay de shacabkii daawanay ayaad markaad weydiisay su'aashii waxay tahay saaxiibada rumaade Soomaalida ahaayo bal sifeeya xaajada kala sooca sheekada jawaabtana inoo sax saabaan leeyahay bal waxaan ku soo hadal celiyo maxay yihiin inoo faahfaahiyay six pack-gan inoo yaran macnaa inta anigu maaragtay aan ka garanayno waxaan ognahay in jiimkaas on tahay murqahaas la sameystay six packs-ka markaynu dib ugu noqono xagu inooga yimid western ama reer galbeedka inta badan waxyaabo wixii soo kordhaaba reer galbeedkii waayada dambe ay ka yimaadeen okay reer galbeedku wax badan bay soo kordhiyeen oo social media oo kaleeto ama saxaafadda shacabka ee dadweynuhu isticmaalaan inta badan oo kaleeto reer galbeedka bay ka yimaadeen waxyaabo badan oo la ismariyo ama waxyaabo badan oo la isticmaalo ama waxyaabo badan oo jirka u wanaagsan reer galbeedka bay ka marka waxay ka mid tahay waxyaabaha soo kordhay bay ka mid tahay oo bulshada Soomaaliyeed waayada dambe soo gaaray bay ka mid tahay aadna loo hadalhayo dhalinyarta iyo waayada dambe isla dhaxmarayso marka ugu dambeyntii maxaad dhalinyarada ku dhexdhexaadin lahayd dhalinyarada waxaan leeyahay haddii ay wax samaynaysaan wixii yaan isku badinaa haddii aad six pack marka inamada aad leedahay haddii aad samaynaysaan haddii aad six pack aad samaynaysaan meesha nagu waalnina maaragtay gabdhihiina waxaan leeyahay kuwa six pack oo kaliya rag ah u arkine raggii kale inuu joogo ogaada marka raggi waa badan yahay oo inta six pack waa la joogaa oo walaal baa jooga waalid baa jooga aaba baa jooga kuwa kale baa jooga raggi way joogaan marka waxaan leeyahay anoo maaragtay ka dhigina inta six pack oo la kaliya inay tahay
intii la dooranayay ama doorkii ahayd intii tahay waa hadal lahayntaas oo kaliya hadal lahayntaasina waxaa laga yaabaa berri ka maalin inay ku anfici wayso adiga marka waxa ku anfacayo qofkaad isku garaatihiin aad isku tacliinta ama sana qofkii ka maaragtay ku abayn karo oo ku dhoori karo mustaqbalkaada ilaalin karayo qofkaas baa la doortaa marka waxaad leedahay yaan bahasha la waaline ha bahasha yaan la waaline inoo yareeya inoo dejiya sheekada maaragtay dhaxaadka noqda idinkuna bal sidii hore kasoo taga ha inamaduna sidii ka yar tageen ma wada turjinayo inamada ma turjinayo anigoo kaleeto six bag ma aan isku dayin inaan sameeyo ma aan isku dayin marka raggii anigoo kaleeto oo aan six bag aan weli sameynin yaan la dhihin wax ma aysan sameyn yaan la dhihin raggaas oo su'aasha raba ugu dambeeyay adiga marna ma lagugu xidhay intii aad six bag soo baxay jawaabta su'aasha marna ma lagu sheekada la isla dhaxmarayo ilaa heesaha lagu soo qaadayo social media qabsato YouTube-da la soo wada geliyo anigu weliba aad baan u cambaaraynaya qaarkood oo rag nin qaawarinayso soo duubay ceeb weeyaan dhaqanka Soomaalida ceeb bay ku tahay marka taas anigu weli ma aan leeyahay xirin waana ragga ka soo horjeedana waan u badnaa weli inta badan marka weli laakiin adiga kuma soo gaadhin anigu weli ma soo gaarin si shakhsiyan ma soo gaarin waa tahay daawadayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijka dhalinyarada oo aad kala socoteen istuudiyaha Kalsan TV magaalada Nairobi barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo Igla Saalax